soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijkan saaka waxaynu ku hormaraynaa colaadda waddanka Yemen oo sii xoogaysanaysa waxaana la sheegayaa dagaaladu in ay ku sii xoogaysanayaan gobollo kala duwan waxaana dagaalka xooggiisa la sheegayaa inuu ka socdo gobolka Marib dhinaca kale waxaa lagu soo warramayaa in duqeymo ay socdaan iyadoo xoutiyiintana wacad ay ku mareen in dagaalka ay xoojin doonaan waxaana ay ku eedeynayaan Sacuudiga in uu gacan ku siinayo waxa ay ku tilmaameen calooshada oo shaqaystayaal oo ay ula jeedaan ciidamada dowladda waddanka Yemen haddaba taliye sare oo ka tirsan ciidamada dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegay in dib u qabsashada caasimadda Sanca iyo magaalada dekedda leh ee Xudayda ay muhiim u tahay sugidda ammaanka badda cas iyo marin biyoodka Bab al-Mandab Tariq Saalax oo xubin ka ah golaha hoggaanka madaxtooyada Yemen isla markaasna ah taliye ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku nuuxnuuxsaday in joojinta weerarada xoutiyiinta ay ku xiran tahay in laga saaro dhaqdhaqaaqa magaalooyinka muhiimka ee ay gacanta ku hayaan fariin muuqaal ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa Saalax waxa uu ku sheegay in dagaalka dhabta ah uusan weli bilaaban kaas oo ka dhana waxa uu ku tilmaamay xoutiyiinta Iiraan ay taageerto waxa uu tilmaamay in Yemen safka koowaad ee difaaca looga jiro si looga hortago saamaynta Iiraan ee badda cas iyo jasiiradda Carabta waa sida hadalka uu yiri dhinaca kale kaaliyaha wasiirka gaashaandhigga ee dalka Yemen sareeye gaas Samir al-Sabri ayaa ku nuuxnuuxsaday in ciidamada dowladdu ay diyaar u yihiin inay qaadaan weerar ballaaran ayna sugaya amar ka yimaada hoggaanka siyaasadda al-Sabri ayaa sheegay in ciidamada dowladda Yemen ay dhamaystireen diyaargarowga saadka qorashayaasha military ee loogu talagalay waxa uu ku tilmaamay dagaal go'aan leh oo ka dhana xoutiyiinta dowladda caalamku uu aqoonsan yahay ayaa go'aamin doonta waqtiga iyo goobta dagaalka ayuu yiri al-Sabri waa tahay warkaasna inta aynu kaga gudubno markan waxaynu eegaynaa xagga Ukraine maanta waxay ku beegan tahay 24 August markii Ukraine xorriyad ay ka qaadatay 1991kii waddanka Ruushka xalay waxaa la soo warinayaa qaraxyo in laga maqlay magaalada Kiev gobollo kala duwan oo waddanka ka midana saakay waxaa laga soo wariyay weeraro kala duwan Ukraine dhankeedana weeraro ayay wadaa laakiin magaalada Kiev waxaa la sheegayaa in maanta ay ku jirto xaalad feejignaan tii ugu weyneyd aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amurahani laga qorayo caasimadda Ukraine ee Kiev ayaa ku jirta feejignaan sare iyadoo dalku uu isu diyaarinayo in maanta la xuso 24 August oo ku beegan sanad guuradii 35aad ee madaxbannaanida Ukraine hay'adda ammaanka Ukraine ee magaceeda loo soo gaabiyo SBU ayaa uga digtay shacabka qataro amni oo suurtagal ah iyadoo ku nuuxnuuxsatay in Ruushku munaasabadahan iyo ismaatinka dadweynaha uga faa'iideysan karo duqeymo falal qalqalgelina weeraro argagixiso iyo weeraro dhanka internetka ah SBU ayaa dadka ku boorisay in ay feejignaadaan ayna si dhab ah u qaataan digninaha weerarada cirka isla markaasna ay booliiska ku wargeliyaan dadka ama dhaqaaqyada laga shakiyo dignitan ayaa timid iyadoo Kiev maalmihii ugu dambeeyay ay wajahaysay weeraro culus oo gantaala 22 August weerar Ruushku uu ku qaaday caasimadda ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac iyadoo gantaala nooca balastiga lagu weeraray magaalada maamulka Kiev ayaa sidoo kale dadka ugu baaqay in ay sii ogaadaan goobaha gabaadka ee ugu dhow kana fogaadaan in ay iska indhatiraan digninaha cirka inta lagu jiro munaasabadda madaxbannaanida waxaana dhinaca kale lagu soo warramayaa in la soo wariyey weeraro kala duwan oo loo adeegsaday diyaaradaha droniska iyo sawaariikh inkastoo ilaa hadda aan la xaqiijin
khasaaraha ka dhashay weeraradan dhinaca kale Ukraine ayaa iyaduna waxay sii wadaa weerarada ay ku beegsanayso goobo kala duwan oo ku yaala waddankaasi ee Ruushka gaar ahaan gobollada xuduudda la leh iyadoo lagu soo waramayo in dagaalo culusna ay ka socdaan gobollo kala duwan gaar ahaan gobolka Donbass oo Ruushku xoogga u saarayo inuu gacanta ku dhigo waddankaasi gobolka ka tirsan ee Donbass oo laysku yiraahdo Luhansk iyo Donetsk. waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Iiraan iyo Maraykanku maanta oo Isniina waxay ku dhawaaqeen inuu dhaqan gelayo go'aan dhaqaale waa dagaal dhaqaale oo culus oo ka dhan ah Iiraan dhakeedana warbaa ka soo yeeray laakiin xaaladdu waxay imika sheegaysaa suurtagalnimada nuclear in la isku isticmaalo haddaba digni laga bixiyey Maraykanku inuu isticmaalo dagaalka nuclear iyo qodobo kale intaan u gudbin ayna ku hakanno qadar xayeysiina tahay intaan u gudbin wararka qadar ogeysiisa kanaalkeena kale ee RTV maanta waa Isniin waxaynu soo gelinay sheekadii xiisaha lahayd ee Caasha waa gabar da'deeda hawl ka weyn haysa mas'uuliyadda ay muujisay gabadhaasi sheekadaasi iyo qaybtii toddobaad raalli ahada qaybtii lixaad ayaan soo gudbinaynaa haddaba la socod wanaagsan waa hagaag intaan u gudbin digniinta laga bixiyey Maraykanka suurtagal inay tahay dagaalka Iiraan inuu isticmaalo nuclear waxaynu ka hormaraynaa wararkii ugu dambeeyey go'aanka weyn ee Maraykanku ugu yeeray dagaalka dhaqaale ee ballaaran oo ka dhan ah Iiraan oo la filayo in maanta lagu dhawaaqo arrintaasi oo la sheegayo in si weyn isha loogu hayo xogayaha maaliyadda ee Maraykanka Scott Bessent ayaa daboolka ka qaaday in Washington ay bilaabayso olole dhaqaale oo aad u ballaaran oo ka dhan ah Iiraan kaas oo ku tilmaamay weerarkii dhaqaale ee ugu weynaa ee nuuciisa ee lagu qaado Iiraan waxaa soo dhow maalintii Iiraan lagula xisaabtami doono dhaqaalaheeda ayuu yiri Bessent isagoo sheegay in ujeedada Maraykanku ay tahay in la gooyo dhammaan ilaha dhaqaale ee taageera dowladda Iiraan Bessent ayaa sidoo kale digniin u diray wadamada xiriirka dhaqaale leh Tehran isagoo sheegay in wadan kasta oo u shaqeeya mari dhaqaale oo Iiraan taageera uu halis ugu jiro inuu la kulmo go'doomin Maraykanka ka imaanaysa waxaa intaasi oo ku daray in weerar kasta oo military oo lagu qaado ciidamada Maraykanka ama wadamada khariijka madaxweyne Trump uga jawaabi doono si degdeg ah oo go'aan leh waa si hadalka uu u dhigay dhanka Iiraan ciidamada ilaalada gacanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay inay diyaariyeen qorshayaal ay kaga hortagayaan cadaadiska dhaqaale ee Maraykanka afayeenka ciidamada ilaalada gacanka Iiraan Hussein Muhibi ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in Iiraan ay sii wadi karto ganacsigeeda inkastoo Washington ay kordhinayso cadaadiska waxaan marar badan sheegnay inaan leenahay qorshe aynu kaga jawaabno tilaabo kasta oo cadowga uu qaado ayuu yiri Muhibi waxa intaasi oo ku daray inay hayaan qorshayaal lagu yareynayo saameynta sida uu yiri dagaalka dhaqaale ee Maraykanka Muhibi ayaa sidoo kale wuxuu ku dooday in ku dhawaaqista madaxweyne Trump ee olole dhaqaale oo cusub ay muujinayso in Washington aysan dhinaca militariga ku gaarin hadafkeedii waxaan samaynaynaa dhaqaaqyo dhaqaale annagoo Maraykanka indhihiisa ku jirna waan hareer mari doona ayuu yiri qorshaha Maraykanka natiijadana waxaan arki doonaa mustaqbalka dhow way haddaba intaa marka laga tago nin professor oo Maraykan ah oo arrimaha nuclear ku takhasusay ayaa digniin wuxuu ka bixinayaa suurtagal inay tahay Maraykanku dagaalka inuu isticmaalo hubka nuclearka haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurtan iyo xogta ee imika soo baxaysa Professor Peter Kazanik ayaa ka digay suurtagalnimada in ololaha military ee Maraykanka uu sii ballaarto isla markaasna xaaladdu ay gaarto heer laga fakaro adeegsiga hubka nuclearka gaar ahaan kan farsamaysan kaas oo ka dhan ah Iiraan Kazanik ayaa waxa uu sheegay inay jiraan warar ku saabsan wada hadallo la xiriira hubkan
waxaana sidoo kale uu tix raacay hadal dhawaan ka soo yeeray haweeney hore uga mid ahaan jirtay aqalka koongareeska ee Mareykanka Marjorie Taylor Greene waxaana ay sheegtay inay socdaan doodo ku saabsan suurtagalnimada adeegsiga hubka nuclearka. Professor Peter Kaepernick ayaa intaa ku daray in xog la mid ah arrimahaasi la helay taasi oo si gaar ah loola wadaagay isaga iyo dad kale, waxaana uu sheegay sheegashooyinkaasi in aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. waxaan hadda ku jirnaa buu yiri xaalad aad u khatar ah. Professorka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in cadaadiska dhaqaale ee dheeraadka ah ee Iran la saarayo ay adkeyn karto in dalkaasi uu go'doon geliyo maadaama Tehran ay xiriir dhaqaale oo weyn la leedahay Shiinaha iyo Ruushka. Kaepernick ayaa waxa uu sheegay in Shiinuhu uu iibsado qiyaastii 80% shidaalka Iran, isagoo su'aal geliyay in Beijing ay u hoggaansami doonto cadaadis dheeraad ah oo uga yimaada Washington. waxaa sidoo kale uu tilmaamay muhiimadda Shiinaha ee sahayda macdanta dhifka ah, kuwaas oo muhiim u ah warshadaha iyo difaaca Mareykanka, isagoo ka digay in cunaqabateyn dheeraad ah ay Washington u horseedi karto cawaaqib dhaqaale oo aad u culus. ninka marka professorka wuxuu leeyahay xogaha soo baxaya waxay sheegayaan in wadahadallo ay bilowdeen. ma la isticmaali karaa nuclear? qaabkee loo isticmaali karaa? ma midka farsamaysan baa la isticmaalaya mise midka istiraatiijiga? su'aalahaas marka wuxuu leeyahay marba haddii ay bilowdeen xaaladdu baraka male ayay tegi kartaa. ninka marka waa nin takhasus ku leh arrimaha la xiriira nuclearka. waa professor muddo dheer ku soo jiray howlahani. marka wuxuu leeyahay waxaa ii muuqda calaamado muujinaya hubka nuclearka in la isticmaali doono. dhinaca kale waxa aysan arrintan digniin ka bixiyey Professor Mohammed Marandi oo ah nin professor ah oo reer Iran ah. wuxuu leeyahay Iran haddii la soo weeraro iska badaa nuclear iyo wax kale waxay ku jawaabi doontaa wax aan la arag oo la maqal. wadamada khaliijka iyo kuwa carabta iyo Israa'iil iyo guud ahaan gobolka bariga dhexna digniin buu ka bixiyey ninkani. wuxuu leeyahay xaaladdu sidan ma si ahaan karto. weliba hadda qorshaha waxaa laga hadlayaaba Iran inay isticmaasho ciidamo dhanka dhulka ah. Kuwait oo kale aad baa loo hadalhayaa. laga yaabaa la leeyahay kooxahan maleeshiyaadka Shiicada ee Ciraaq inay xagga ka soo galaanba Kuwait. Xuutiga inkastoo dagaal culus uu haysto, iyaga laftooda waxay leeyahay waa la diyaarinayaa marayka babalmadam in la xiro iyo hawlahaasi oo idin. xaaladda marka waxaa leeyahay waxay ku socotaa baraka ma leh. maanta waxaa laga warsugi doonaa waxa uu la tegi doona magaalada Tehran taliyaha ciidanka Pakistan General Asim Munir oo wadahadalo la yeelan doona mas'uuliyiinta wadanka Iran. haddii waxa leeyahay marka arrintu ay noqoto wadaxaajoodka in dib loo bilaabi karo, waxaa laga baaqsan karaa dagaal lagu hoobto. laakiin haddii xaaladdu sidan ku sii socoto waxaa leeyahay Trump dagaalkiina kuma guuleysan. haddii uu guuleysan waayo nin nacab weeyaa la leeyahay marka in la yiraahdo laga guuleystay. wax kasta oo isticmaali kara marka inuu isticmaalo oo nuclear uu ku jiro ayay qubarada ka digaysa sida Professor Peter oo hadda aynu maqlayno. marka waynu arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahani. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. si aad ula socoto wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.